ila sirdoon ayaa horey waxa ay u shaaciyeen in xanuun daran uu la ildaran yahay hogaamiyaha guud ee al-shabaab Axmed Diiriye Abu Cubeyda tan iyo markii la magacaabayna uu wajahayay xanuun aad u daran. Axmed Diiriye amiirka al-shabaab ayaa mar la sheegay in uu geeriyooday, inkastoo warkaasi mar dambe uu noqday mid been abuur ah oo al-shabaab ay beeniyeen. al-shabaab horey waxa ay u beenisay in uu xanuunsan yahay hogaamiyaha kooxda, waxaana ay dafireen in xitaa xanuun yar uu hayo, iskaba dhaaf in uu la ildaran yahay xanuun daran. waxaana ay sheegeen in warkaasi oo been abuur ah ay faafintoodu qayb ka tahay dowladda federaalka. warar aad isu soo taraya ayaa sheegaya in amiirka al-shabaab muddadii uu xanuunsanaa lagu dabiibayay cisbitaallo ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde oo ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya, horeyna uga soo mid ahaa hogaamiyayaashii maxkamadaha islaamiga ah, ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in hogaamiyaha al-shabaab Axmed Abu Cubeyda xanuunkiisa lagu dabiibay cisbitaallo ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa oo uu ka mid yahay cisbitaalka Erdogan X Digfer. waxaana uu intaa ku daray in awoodda al-shabaab iyo weerarada ay geystaan aan la dhayalsan karin. waa mid la yaab leh, balse ay dad badani sheegayaan in ay tahay wax dhici kara mar haddii hogaamiyaha al-shabaab aanay dadku badankii aqoonin weji ahaan, walow ay jiraan sawiro lagu baahiyey warbaahinta oo la sheegay in uu yahay muuqaalka wejiga hogaamiyaha al-shabaab Abu Cubeyda. haddii tani ay dhab noqoto, waxa ay filan waa ku noqon doontaa dowladda federaalka ee dagaalka xoogan kula jirta al-shabaab, mar haddii hogaamiyihii kooxdaasi xanuunkiisa lagu dabiibay cisbitaal Muqdisho ku yaala oo dowladda Turkigu ay gacanta ku hayso. aas-aasihii iyo hogaamiyihii ugu horeeyay ee ururka al-qaacida Usaama bin Laden oo la dilay bishii May sanadii 2011 ayaa halka lagu dilay waxa ay ahayd magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan. hoygii uu magaaladaasi ka deganaana wax ka yar 5 kiiloomitir u jiray saldhig weyn oo militariga Pakistan ay ku leeyihiin magaaladaasi. ma ahayn wax si sahlan loo rumaysan karay in hogaamiyihii guud ee al-qaacida uu magaaladaasi weyn ee gudaha Pakistan degan yahay, taasina ay sii dheer tahay in gurigii uu deganaa Usaama bin Laden uu aad ugu dhowaa saldhig weyn oo militariga Pakistan ay leeyihiin, taasi oo ilaa ay hadda militariga Pakistan ay in badan wax iska weydiinayaan. Usaama bin Laden oo madaxiisa malaayiin dollar ay dul saarneed ayaa dhowr jeer waxa uu Mareykanku isku dayay in uu qaarijiyo, inkastoo ay u suurtageli weyday, balse May 2011 ayay Mareykanku howlgal gaar ah oo ciidamada Mareykanka ay fuliyeen kana dhacay magaalada Abbottabad lagu dilay Usaama bin Laden, aas-aasihii iyo hogaamiyihii kooxda al-qaacida. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. midna hanaga iloobin daawade in aad subscribe noo saarto channelka, like-na aad saarto fiidiyowga, qaybta hoosena aad comment ka dhiibato si aad noo dhiirigeliso. mahadsanid.